tirada dadkii ku dhintay doomo ay la socdeen dad tahriibayaal ah xeebta oboq ee waddanka Djibouti ayaa iminka korodhay 52 meyd ayaa la helay shalay. Hay'adda socdaalka muhaajiriinta IOM ayaa waxa iyaduna ay sheegaysaa in shaqaalaheeda ku sugan oboq ay soo tabiyeen in la soo badbaadiyay 16 qof oo markaasi dhibaatadaasi laga soo badbaadiyay. Doonta degtay ayaa ka mid ahayd 2 doomood oo la sheegay in ay saarnaayeen dad gaaraya ilaa 130 qof oo doonayay in xeebta badda cas ay ka tallaabaan si ay u tagaan dalalka Carabta. Sanadkeenu ka soo gudubnay IOM waxay sheegtay in xeebaha Djibouti ay ku dhinteen dad gaaraya 150 qof oo tahriibayaal ah. Dadka halkaasi marka laga soo badbaadiyay maanta waxa ka mid ahaa wiilkan dhalinyarada ah. marka Jordan ka lugeeyay ubuq baan galay ubuq buu iga qaaday nin dilaaliye wuxuu geeyay meeshii xeebtii badda doonidii baan raacnay anagoo 85 qof marka 85 qof wax doontii baa kii naarqooda ahaa doonta ka booday intay motorka u xumaaday. taliyaha ilaalada xeebaha ee waddanka Djibouti Colonel Wacays Umar Boqorre ayaa isna hadda ka hadlay xaaladdu sida ay tahay. 52 ayaa nimanka halkan ka arkaynaa meydkii ay ciidamadan badda ku jiray ay soo saareen. tiraduna waa beeri kartaa hawshana way socotaa. waa tahay haddaba wariyaha BBC-da Maxamuud Boulhan ayaa goor dhaweyd warbixintan nooga soo diray magaalada Djibouti. dalka Djibouti waxaa ka dhacay shil lama filaana iyadoo oo 2 doonyood ay ku rogmadeen magaalada Godoriya ee Gorangar. waxaa jira dhimasho iyo dhaawac. wararkii ugu dambeeyay ee aan helayno ayaa waxa ay sheegayaan in 12 qof ay haatan dhimashadu marayso iyadoo ay wali socdaan hawlaha lagu baadi goobayo raq iyo ruux wixii hadhay sidii looga soo saari lahaa gudaha biyaha badda. wararkii ugu dambeeyay ee haatan soo gaaraya ayaa waxa ay sheegayaan in baddu wali ay kacsan tahay isla markaana ciidanka ilaalada xeebaha ee Djibouti oo kaashanaya ciidamada kala duwan ee Djibouti ay wadaan hawlgalka lagu baadi goobayo dadkii wax ku noqday. 2 doonyood ayaa waxa ay ka sharaacdeen magaalada Godoriya oo sagta maamulka Gorangar ee gobolkaas Ubuq. markii 30 daqiiqo ay ku jireen gudaha badda oo aad u kacsaneed kadib waxa ay sababtay in cilad dhanka motorka ay soo gasho doontii ay saarnaayeen waxaana rogmatay doontaasi qaar kamid ah ayaa badbaaday oo laga soo saaray gudaha badda. dadka badbaaday ayaa hay'adda socdaalka adduunka u qaabilsan qaramada midoobay xafiiskayga Djibouti IOM waxa ay sheegeen in dadkaasi ay gaarayaan 16 qof.